dadweynaha madaxda kale ardayda howlwadeennada jaamacadda Professor Suleymaan Axmed Guuleed dhammaantiin sharaf weyn bay noo tahay in aanu halkan idinku soo dhaweyno jaamacadda Camuud inta kadib waxaan in yar warbixin idinka siin mudane madaxweyne jaamacaddan Camuud iyo sidii ay ku soo aasaasatay jaamacadda ka hor dugsigii labaad ee dhexe ee British Somaliland Protectorate ay Somaliland ka dhisto ayaa 1948 halkan laga dhisay meel kiiloomitir imika bari inaga xigta oo kulliyadda beeraha hadda isku bedeshay iskuulkaasi markii dambe wuxuu noqday dugsi sare oo xagga beeraha ah maantana waa kulliyadda beeraha ee jaamacadda Camuud 1952 ayaa dugsigii sare ee ugu horeeyay ee British Somaliland Protectorate laga dhiso ayuu ahaa dugsigan iyo dhismayaashan mudane madaxweyne imika aad arkaysaa muddo sidaa ku soo shaqeeyay waqtigii burburkii kadib waxa aqoonyahan baa isku yimid gaar ahaan qurba jooga nima fadhigoodu ahaa markaas Saudi Arabia oo afar ka koobnaa fikrad bay soo jeediyeen in ardaydii jaamacadu ka joogsatay iyo kuwii ku beegnaa ee aan jaamacadda gaadhin iyo kuwii iskuulada ku jirayba dib loo xereeyo oo iskuulle iyo jaamacada loo furo fikirkii bay halkan keeneen workshop baa la qabtay magacu uu ka duwanaa markaa kan imika Camuud jaamacadda Camuud loo bixiyay iyagu waxay wateen Awdal University workshop ka la qabtay baa markaa lagu bedelay 1997 ayaa jaamacaddii ugu horeysay ama waqooyiga ama Somaliland marka dambe laga aasaasay ayay jaamacadda Camuud sidaa ku noqotay waxa calanka u siday muddada 25 sano ah ilaahay cimrigiisa ha raajo aakhirana jannada ha geeyay Professor Suleymaan Axmed Guuleed oo aanu qabno isaga la'aantii inaanay suurto gasheen waayo waqtiga jaamacaddu ku soo hagaagtay waqti dadka iyo dalkuba burbursan yahay oo maskaxdana abaari dadka kaga dhacday bay ahayd waxa lagu aasaasay laba fasal ama laba kulliyadood oo ahaa maareynta maamulka iyo maareynta iyo kulliyadda waxbarashada saddex macallin ayaa waqtiga la helay oo labada kulliyadood wax ka dhigi kara maanta ardayda ku jirta waa 6,000 oo ardayda ka qalin jabisayna waa arday ku dhow 20,000 oo arday ku dhow ayaa ka qalin jabisay mudane madaxweyne muddada markaa isbedel badan baa dhacay oo undergraduate postgraduate baa la aasaasay 2012 ardayda fasalada maanta wax ka bartaa waxa weeye waa 151 fasal weeye halka laba fasal lagu aasaasay dugsiga School of Postgraduate waa 17 program oo isugu jiray kambasyada Hargeysa iyo Boorama iyo mid online ah oo dhulka Soomaalidu degto dhan wax lagu baro oo waxa weeyaan habeen walba ama maalin walba kalaaska uu si joogto ah u baxo 17 program ee postgraduate ka waxa ka dambeeyay 10 program oo ay ku jiraan 3 program oo PhD ah oo aan wada fulinayno jaamacadda Haramaya University oo bilaamay oo ardaydii hadda ay ku jiraan arday ilaa 80 arday ah inta jaamacadda iyo warbixinteeda haddaan ku soo koobo hal erayo xagga aqoonyahan ku baan ku soo yar dari ereygaas waxa weeye anigu arday baan ka noqday East Africa 2009 si aan markaa digrigii labaad uga soo diyaariyo waxaan u fiirsanayay qaabka ay wada shaqeeyaan wadamada la yiraahdo East Africa Community sida Uganda Rwanda Burundi Tanzania Kenya waxa kale oo soo raaca Zaire baa markaa iyaduna xiriir weyn la leh dhaqaalaha siyaasadda amniga يعني قاب كأول شقيان وقاب كدوان سان إنك أول شقيانه دول كسومالي دكتور قاب كدوان بيوض شقيان وحديد أديك كده هيو وديابسا وحوي جناع السجا لقى سوق قاضو منباس لقى سوق قاضو
ayaa wuxuu tagaa Sa'iir buu tagaa ama wuxuu tagaa Rwanda waxa kale oo jira iyadna Tansaaniya ka yimaad baa Burundi halka ka gala waxaan rajaynaynaa in maanta maadaama aanu isla helay madaxweynihii kililka iyo madaxweyne ku-xigeenkii idinka horumadu ah dadkan ummadan waxa way rafaadka ku jirta resource-ku ku yar yahay waxa weeyaan wareersan idinka mas'uuliyadii maanta haye ku dadaalaanu leenahay in la isku furo oo dadku wada shaqaysto waxaan tagay sanadkii 2012 dalka Turkiga si aan PhD u soo diyaariyo ninka madaxweynaha Turkiga Erdogan 2002 ayuu madaxweyne noqday ka hor wuxuu ahaa dalka Turkigu wadanka 129 xagga dhaqaalaha adduunka anigu 2012 baan tagay 10 sano madaxweyne ahaa waxaan tagay Turkiga oo ku jira uu waqtiga galay waxa weey G20 wadamada 20 ka ay dhaqaalaha maamula wuxuu ka soo dhaqaajay 129 wuxuuna keenay wadanka 16aad xagga adduunyada marka Yurub laga hadlayo Yurub wuxuu noqday Turkigu wadanka 6aad 5 wadan u baa ka horeeyay waqtiga marka hal qof ama madaxda dhulka Soomaalida oo wada shaqaysa ayaa wax ka bedeli karta ummadda tan aad baan ku soo dhaweynaynaa soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh